salaan kadib shir saxaafadeedkan aan caawa isugu nim wuxuu daaran yahay inaan ka warbixin ka bixino dadweynaha reer Boosaasood xirnaanshiga oo xirnaa suuqa maalmihii ugu dambeeyay runaantii waxay ahayd caqabad soo wajahday dhammaan dadka ku nool magaalada Boosaaso in suuqa iyo isu socodku intaba ay xirnaayeen maalmihii ugu dambeeyay ay u xirnaayeen arrimo farsamo ama dadka oo runaantii amarkii dawladda ka soo baxay oo qaatay in lacagtii shilin Soomaaliga ay la buriyay ama la mamnuucay sida lagligeed waxaan rabnaa inaan uga cadeyno dhammaan dadweynaha ku naqan degmada Boosaaso iyo nawaaxigeeda in lacagta shilin Soomaaliga la qaadanayo in dawladdu qaadanayso in gaar ahaan dawladda hoose ay qaadanayso sidii caadada ahayd oo maalinlaha ahayd u qaadan jirtay shilinka Soomaaliga inay u qaadanayso waxaan ku qaadanaa in cashuurta shilin Soomaaliga ah waxaan ka maalinlaha waxaan ku qaadanaa customka waxaan ku qaadanaa isha cashuurta suuqa dhexe oo suuqa qudaarta iyo suuqa hilibka waxaan ku qaadanaa cashuurta isha suuqa kalluunka suuqa saylada xoolaha waxaan ku qaadanaa dhammaan biilada dhammaan goobaha ay dawladda hoose cashuur uga soo xiroodaan waxaan ku qaadanaa sidii hore caadada u ahayd shilinka Soomaaliga si lagligeed waxaanu ku sheegaynaa oo faraynaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso sida ay dawladda hoose lacagta shilinka Soomaaliga oo u qaadanayso in dadweynuhuna ay u qaataan oo waajib ay tahay maadaama ay tahay lacagta ummadda Soomaaliyeed waxaanu si gaar ah u faraynaa shirkadaha warshadaha biyaha warshadaha barafka warshadaha rootiga dadka ka ganacsada hilibka dadka ka ganacsada maqaaxiyaha iyo meheradaha shaaha dadweynaha dadka ka ganacsada gaadiidleyda ah oo biilada magaalada dhexdeeda ka shaqeeya iyo dhammaan dadweynaha ku taxalluqaan ganacsiga waaweynba inay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga hadaba cid allaale cidii aan qaadanayna aan u hoggaansanay awaamirta dawliga oo lacagta shilinka Soomaaliga aan qaadanayna waxaan u sheegaynaa inaanu ka qaadano talaabo sharciga waafaqsan taasoo tan koowaad ay noqon doonto inaanu kala noqono shatiga ganacsiga ee ku ganacsanayaan magaalada Boosaaso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaynu kulligeen u wada hoggaansanno awaamirta dawliga waxaan rajaynayaa in shilinka Soomaaliga ah sidii hore uga shaqeyn jiray magaalada inuu uga shaqeeyo sidoo kale waxaan u faraynaa dad qaarkood oo qaswadayaal oo runaantii dadweynaha ku khasbaya in goobaha ganacsiga la xiro in laga hawlgalayo waxaanu si kale u amreynaa alaamaha ammaanka in bilis waxa loo gaaro laga hawlgali doono dhammaan goobaha suuqyada oo idil iyadoo laga hawlgali doono cid walba oo meeradeeda si sharci darro ah sharciga waafaqsan ku xiran tahay iyo cid walba oo soo tafaxiilatay in subaxdii u timaado suuqa inay qas ka sameeyso awaamirtaasna waanu siinay laamaha ammaanka waana isla qaadanay waana laga hawlgalay hadii Allah uu diray aad iyo aad baad mahadsantahay